waxay soo taraya hadalhaynta la xiriidha khilaafka madaxii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo bayaan uu saakay soo saaray uu ku faray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir madaxii hay'adda sirdoonka qaranka inuu sii wato shaqadiisa. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka jawaabaya bayaan uu xalay soo saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaas oo shaqada uga joojiyay madaxii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyadoo si ku meel gaar ah uu Ra'iisul Wasaaruhu agaasimaha guud ee NISA ugu magacaabay Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Wadayaal warbixintan waxaynu ku eegi doonaa waa kuma Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ninka xudunta oo khilaafka maanta ka taagan Soomaaliya. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu ku dhashay magaalada Mandheere ee dalka Kenya July 1978 sida ay muujinayaan baasabooradiisa. wax badan lagama oga noloshii hore ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaase la sheegaa inuu qayb ahaan ku noolaa magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo waxaa sidoo kale la sheegaa inuu ku soo barbaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho. dadka yaqaana waxa ay sheegeen inuu wax ku soo bartay dalka Yemen kadib waxbarashadiisana uu dib ugu soo laabtay Soomaaliya halkaas oo uu kala jaan qaaday urur diimeedyadii ka jiray gudaha dalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inuu wax ku soo bartay dalka Pakistan sida lagu qoray majalada Foreign and Defense Policy inkasta oo warkaas aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii sagaashameeyadii ku biirtay dhaqdhaqaaqyadii Islaamiga ah ee ka hana qaaday Soomaaliya horaantii 80meeyadii markii kooxda Itixaadka iyo ciidamada Itoobiya ku dagaalameen gobolada xuduudda ee Gedo. sagaashameeyadii wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii la shaqeynaysa Itixaadka balse isagu ma ahayn askari dagaalamo sida ay noo sheegeen dad ku dhawaa. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin diinta ku adag si wanaagsanna u bartay wuxuu sidoo kale si wanaagsan ugu hadlaa afka Carabiga. soo ifbixi internetka iyo website-yada ayuu wuxuu ka mid ahaa wariyaal maqaalo iyo faalooyin ku qora mid ka mid ah bogagii ugu caansanaa Soomaalida ee somalitalk.com isaga oo wax badan ka qori jiray siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha Islaamiga ah. intii uu la shaqeynayay boggan wuxuu tabin jiray shirarkii dib u heshiisiinta ee ka socday Kenya wuxuuna wareystay dad caan ah oo uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd Cabdiqaasim Salaad Xasan oo uu ku wareystay magaalada Muqdisho. wuxuu qori jiray maqaalo lagu dhaliili jiray hogaamiye kooxeedadii Soomaaliya iyo dawladihii ku meel gaarka ah ee hogaaminayeen Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Allah u naxariistay madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. sanadihii 2005 ilaa 2011 Fahad Yaasiin waxa uu wariye u ahaa telefishinka Al Jazeera qaybta Carabiga ee fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo waxa uu uga soo warrami jiray dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo wadamo kale oo ku yaala Geeska Afrika. intii uu ahaa wariyaha Al Jazeera waxa uu wareystay qaar ka mid ah hogaamiyeyaashii ururadii Islaamiga ahaa sida Sheekh Xasan Turki oo hogaaminayay isagoo booqday xarunta Raas Kamboni. waxa uu sidoo kale wareystay hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. qiyaastii 2014 ama 2015 ayuu ku biiray xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista ee Jazeera oo uu qoray warbixino kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan waxaana Al Jazeera noqotay marin uu ka soo galo siyaasadda Soomaaliya. sidee ayuu haddaba Fahad Yaasiin Xaaji Daahir siyaasadda Soomaaliya ku soo galay? waxa uu si toos ah siyaasadda Soomaaliya ugu soo biiray xilligii maamulkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo markii dambe ay isku fahmi waayeen hanaanka siyaasadda iyo daadihinta dalka. waxaa la sheegaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud ka caawiyay dhinaca ololaha iyo dhaqaalaha iyadoo markii dambe uu taageerayay ololihii madaxtinimada ee Farmaajo isaga oo noqday madaxa ololaha doorashada Farmaajo sanadkii 2016. xukuumaddii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa Fahad Yaasiin loo magacaabay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda hase yeeshee isla markii la magacaabayba Fahad wuu iska casilay xilkaasi. kadib doorashadii Farmaajo Fahad wuxuu noqday agaasimaha madaxtooyada ka hor inta uusan noqonin madaxa hay'adda sirdoonka ee NISA. waxaa lagu tiriyaa inuu yahay shakhsiga ugu saameynta badan dawladda madaxweyne Farmaajo. sidoo kale dad badan waxay aaminsan yihiin inuu saameyn ballaaran uu ku leeyahay go'aanada iyo tallaabooyinka siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya. olole doorasho oo adag ayuu la soo galay madaxweynaha talada haya ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana inta aan loo magacaabin xilka agaasime ku-xigeenka nabad sugidda uu mar ahaa agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya. dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin inuu wax badan ku soo kordhiyay nidaamka dawladnimada halka kuwa kale ay aaminsan yihiin inuu noqday qofka daaha gadaashiisa ka maamula dawladnimada Soomaaliya. wax kasta oo laga tabanayo iyo wax kasta oo lagu tuunsan yahaba waxaa jirta arrin aan dood ka taagnayn oo ah inuu yahay nin hay'adeed oo karti badan. wuxuu sameeyay xukayntii ugu horeysay ee madaxtooyada Soomaaliya ee sida xukayn la yaqaan u shaqeysa tan iyo burburkii iyo taliska sirdoonka sida uu u habeeyay tan iyo intii uu ku biiray. sidaasi waxaa sheegay Ibraahim Faarax Bulsaliid oo ka faalooda arrimaha gobolka. inta aan aniga ka aqaano Fahad ma ahan qof garan kara inuu arko waxa ummadda oo dhan u dan ah.
wuxuu arki karaa dowladnimadu inay qabyaalad ku dhisan tahay. Qofka ugu fariidsan ma raadiyo ee kan isaga wadan kara ayuu raadsadaa. xagga dambe qofka ka maamula dawladda ayuu isu arkaa, waana taasi sababta loo yiri waa milkiilaha dawladda. Sidaasina waxaa sheegay Cabdi Ismaaciil Samatar oo la kulmay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. sanadkii 2012 wuxuu bilaabay inuu door weyn ku yeesho siyaasadda Soomaaliya, isaga oo sida la sheegay u isticmaalay lacag ka timid dalka Qatar inuu ku gato codadka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. ilaa iyo dhawaan wuxuu ahaa Fahad mid leh kaalin ay Qatar u isticmaasho siyaasadda Soomaaliya, isaga oo aan muuqanaynin, taas oo gaarsiisay heerka guusha siyaasadeed ee uu u talaabay. waxaa sidaasi lagu qoray bogga Foreign and Defense Policy African Terrorism. asxaabtiisa oo uu la hadlay ayuu u sheegay hadda ka hor in siyaasadda lagu mutaysan karo cadaab iyo janno iyadoo ay ku xiran tahay buu yiri waxa aad sameynayso iyo ujeedada aad ka leedahay. markana daawadayaal waxaynu eegi doonaa dabeecadaha gaarka ah ee uu leeyahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, madaxii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. inta la arkay Fahad waa nin ka duwan dadka ka shaqeeya siyaasadda Soomaaliya marka ay timaado la macaamilka dadweynaha. waa nin aad isu qariya kana fogaada inuu ka soo muuqdo warbaahinta iyo muuqaalada laga duubo madaxda. waxay ka dambeeyay sanadkii 2012 markaas uu ku soo biiray siyaasadda Soomaaliya. markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu warbaahinta la hadlo iska badaayay wax sawir ama muuqaal ah oo muuqda lagama qaadin, taasoo la leeyahay waxay muujinaysaa sida uusan u doonin in laga helo wax macluumaad ah. wayna adag tahay in la ogaado qorshayaashiisa, taasoo sababtay in mucaaradka dawladda Farmaajo ay heli waayaan dulduleeryada iyo qorshayaasha dawladda si ay u dejiyaan istiraatiijiyad ka dhanahay. waxaa kale uu Fahad Yaasiin leeyahay dabeecad kale oo ay adag tahay in lagu arko qof siyaasi oo Soomaali ahi, waana dhanka baraha bulshada. inkastoo laga yaabo in ay dadka ka shaqeeya arrimaha sirdoonka ay arrintaasi kala simeeyeen. wax akoon ama ciwaan ah kuma lahan baraha bulshada sida Facebooka, Instagramka iyo Twitterka. dhanka ammaankiisa waxaa dad garanaya ay sheegeen in aad loo ilaaliyo, qofkii doonana uusan si sahlan ku arki karin. waxaana dadka yaqaana ay sheegaan inuu yahay nin ku adag ballanta iyo go'aanadiisa siyaasadeed. dad la kulmay qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in Fahad uu yahay nin afgaaban oo hadal dhowrsan, misna aad uga fiirsada hadalka afkiisa ka soo baxaya.